intii u dhaxaysay dhammaadkii Shacbaan iyo horaantii Ramadaan 114 Hijri, Oktoobar iyo November sanadkii 732 miilaadi waxaa dhacay dagaalkii Foornadii Shuhadada. waxa uu dhaxeeyay ciidamada Andalus ee Islaamiyiinta iyo sidoo kale ciidamadii Yurub. waxa ay ahayd dagaal aad u adag oo wajiga taariikhda Islaamka aad u bedeshay. waxa hogaaminayay Cabdiraxmaan al-Ghafiqi oo ka mid ahaa kuwii taabiciyiinta ugu awoodda badnaa. waxa uu soo jihiyay ciidamadiisa dhinacii Faransa. waxa ay ku sigteen in ay guul ay soo hoyaan muslimiintii halkaasi soo gaartay. bar ka mid ah dalkaasi Faransa dhinaca koonfurta ayay muddo bilaa gacanta ay ku dhigeen. hogaamiyihii militariga Charles Martel ayaa isaga waxa uu heegan u geliyay ciidamadiisa. Yurub oo dhan waxa ay ka jawaabtay baaqi Martel. dhammaan Yurub oo dhan waxa ay isugu soo geeyeen ciidamo weyn oo ka hortaga Islaamka. maalmo dagaalkaasi oo socday waxa uu badbaadiyay dagaalkaasi joogitaanka Kirishtanka ee Yurub. waxa loogu magac daray dagaalkaasi Foornadii Shuhadada. tiradii ugu badneed ee ciidamo Islaamiyiin ah ayaa geeriyootay, waxaana hogaaminayay Cabdiraxmaan al-Ghafiqi oo ka mid ah dadkii geeriyooday. aynu gudagalno dhacdada iyo sida ay u dhacday. yemen, shaam, masar iyo afriqi waxa ugu yeeray in ay taageeraan. dhammaantoodna waa ay soo qaabileen iyaga oo ka imaanaya muslimiinta meel weliba. saldhigooda waxaana laga dhigay magaalada Andalus. inta aan loo jihaysan Faransa, Cabdiraxmaan waxa uu qaatay 2 sano oo uu diyaarinayay dagaalkaasi weyn. waxa uu diyaariyay ciidamo fara badan oo dhinac waliba ka yimid. waxa uu adkeeyay qulubtoodii iyo iimaankoodii in dagaalkaasi loogu diyaar garoobo. waxa uu diyaariyay ciidamo fara badan oo u soo jihaysay dhinacii Faransa. horaantii sanadkii 113 Hijri waxa uu soo jeestay dhinacii Faransa. waxa uu soo jiray gobollo badan, buurihii Branis iyo sidoo kale magaalada Orel ee dhacda webiga Rhone. halkaasi uu la wareegay. dagaal adag oo aad u adag oo ay galeen ciidamadiisii kuwo kale Kirishtan ah. waxa uu la wareegay magaalada Lyon iyo kuwo kale ilaa ay ka soo gaaraan Sens. Cabdiraxmaan waxa uu furtay qayb ka mid ah Faransa dhinaca koonfurta. waxa uu soo jeestay meelaha ay joogeen Kirishtanka, meeshaasi oo ay ka dhici doonto Foornadii Shuhadada, dagaalkii loogu magac daray. Cabdiraxmaan waxa uu ahaa qof aad isugu kalsoon iyo jirkiisa iyo sidoo kale waxyaabaha soo wajihi kara. waxa uu doonayay in uu fuliyo waxyaabihii uu ka dardaarmay Cusmaan bin Cafaan. Qusnطiniya haddii la furto waxa ay ka dhiganaan doontaa in kuwa furtay ay ku ajar noqdaan kuwii ku shahiiday Qusnطiniya. Charles Martel iyo ciidamadiisu waxa ay noqdeen kuwo isku bogaadiyay in cagaha la surto aan la ordin. Yurub waxa ay si aad ah ay uga carotay ciidamada Islaamka oo si aad ah u soo xoogaysanaya. Kirishtanka aad ayay uga yaabeen arrintaasi, taa oo qasabtay in meel waliba Yurub ay isaga yimaadaan. waxay noqdeen kuwo ku sii jeesta dhinacii waqooyiga, halkaasoo dagaal xooggan ay kula galeen ciidamadii muslimiinta ahayd. Cabdiraxmaan al-Ghafiqi waxa uu ka shaqeeyay sidii uu u badbaadin lahaa naftiisa iyo sidoo kale ciidamada in uu mideeyo, balse nasiib wanaag waa uu geeriyooday, waa uu shahiiday. Allah u naxariisto.
cabdiraxmaan alkhaafiqi markii uu dhacay ama uu geeriyooday waxaa dhacay guuldaro dhinaca nafsiyan soo wajahday ciidamada muslimiinta. waxa ay isku dayeen inay gadaal ay u laabtaan. ciidamada faransiiskase hore ayay ugu soo dhaqaaqeen oo ciidamadii muslimiinta ay soo codsadeen. ciidamada muslimiinta waxa ay dareemayeen niyajab aada u xoogan, waayo waxa uu hadafkoodu ahaa in faransa ay gacanta ay ku dhigaan dhammaantiisa. laakiin markii ay ku fikireen inay gadaal ay u laabtaan waxa ay ahayd markii ay guuldarayseen. dagaalka waxa uu dhammaaday xilli habeen lagu dhow yahay. muslimiintana waa ay soo baxeen, saldhigyadooda waa ay ka soo baxeen iyaga oo dab yaryar wato waddada ku iftiinsanaya. waa ay ka soo tageen waxyaabihii xoolaha ay qabsadeen. guryahoodii waa ay ka soo baxeen, gadaal ayay u soo laabteen iyagoo ka ordaya in tiro badan oo shuhada laga dilo oo ciidamada muslimiinta ah. Charles Martel waxa uu soo galay foornadii shuhadada, halkaasoo taariikh weyn ah ku reebtay oo kirishtan badan lagu dilay. ciidamada muslimiintana ay iyaguna kuwo badan looga dilay, inkastoo dagaalka lagu soo jabiyey. waxa uu ahaa qof aada u taxadirayey. waxa uu ka baqayey in dhibaato kale lasoo gaarsiiyo ama dhabagal ay ku soo sameeyaan ciidamada muslimiinta. markuu arkay cabdiraxmaan oo geeriyoodayna ciidamada oo iyaguna gadaal u baxsaday, Charles Martel gadaal ayuu u soo laabtay. waxa uu ka yara baqay in arrintani ay tahay taagtig ay ciidamada muslimiintu ay degayaan. waxa uu guul haaf ah uu kula laabtay magaalada Baariis, isaga oo sheeganaya guul haaf ah oo aan dhammaystireen. waxa uu ka baqay in ay arrintaas istaraatiijiyad ay tahay.